gudoomiyaha waxbarashada gobolka Saaxil oo ay weheliyaan xogayaha dawladda hoose degmada Berbera iyo agaasimaha waaxda tababarada ee wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si wadajir ah u furay tababar ay u qabteen 30 arday oo kamid ah ardaydii shaqo qaran ee lagu soo qoray wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil ee macallimiinta ka noqon doonta dugsiyada waxbarashada ee gobolka Saaxil. tababarkan oo fulinayo gudoomiyaha jaamacadda Alfa qaybteeda magaalada Berbera gudoomiye Axmed Faas ugu horeyna waxa halka ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Saaxil Ibrahim Digaale Maxamed waxaanu kula dardaarmay macallimiinta tababarku u furmay inay ka faa'iideystaan duruusta muddada ay socoto duruustani. maanta waxaanu halkan isugu nimi inaanu ka daahfurno tababar kooban oo socon doono muddo 3 cisho oo la siin doono macallimiinta dhalinta shaqo qaran qaybtii waxbarashada 30 macallin baan halka ku tababari doonaa ku yaraan 20 macallin waxay ka yimaadeen dhalinta shaqo qaran qaybtii waxbarashada lagu soo qoray 10 macallin kale waxa weyn macallimiintii sida rasmiga ah u shaqeynayay ee aan tababarka fursad u helin ayaan ugu talagalnay inay iyaguna ka faa'iideystaan. waa tababar runtii lafdhabar u ah hawsha macallinimo, waa qaabkii macallinku wuxuu gudbin lahaa, waa qaabku macallinku ardayga fasalka dhexdiisa u maamuli lahaa, waa qaabku duruusta iyo casharada kala duwan uu u siin lahaa ardayda. agaasimaha waaxda tababarada ee heer qaran Maxamed Axmed Gadow ayaa isna halkaa ka sheegay faa'iidada ay macallimiinta u leeyihiin tababarada noocan oo kala ahi. maanta waxa ku soo biirtay field cusub oo iyagu doorateen waliba oo ah inaad qarankiina u soo saartaan arday tayo leh. ka askariga doortay anaga waxaanu ka jecel lahay ninka doortay macallinimo mid baa meeshana ku jirta waxa la yiraahdaa shaqada macallinimadu way ka adag tahay askarinimada. 1973 waxaan ahaa GCD u dambeysay dalka maydaan jiraa Gadow wuxuu yidhi 40 baan dhigayay, waan ka yar badanay waxoogaa 40 u dhigayay inkastoo aan teachingka waxa ay dheeraa protein biochemist yaan anigu ahay specialization ahaan, markaa dawooyinkana waan sameeyaa. gabagabadiina xogayaha dawladda hoose degmada Berbera Cabdikariin Aadan Cadde ayaa tilmaamay in dawladda hoose degmada Berbera ay ku garab taagan tahay wasaaradda waxbarashada dhiirigelinta macallimiinta. runtii farxad weyn bay noo tahay inaanu ka qayb qaadano tababarkan 3 cisho soconaya oo kamid ah waxyaalihii aynu ku naaloonaynay ama qorshayaasheenu ay ahaayeen. waxaan halkan uga mahadnaqayaa Ilaaha Raxmaanka marka hore ayna kulansiiyay waxa kale oo mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maskaxdiisa ka timi qorshaha shaqo qaran ee kii ugu horeeyay inuu imka midhiisa goranayno. waxa kale oo halkan uga mahadnaqaynaa wasaaradda oo hadi habeen ku hawlan kor u qaadista waxbarashada qaranka guud ahaan. waxa kale oo iyana lama ilaawan oo aan u mahadnaqaynaa jaamacadda Alfa farceeda Berbera oo macallin Axmed halkan nagala joogo. Axmed Faas baan anagu aqaanaa waana magacu ku caanamaalay. runtii dardaaran iyo tusaale iyo wax isu sheeg waxa idinku filan 4 oday iga horeysa halkan ka hadlay oo 4 academically ay maxay tahay shaqadoodu tahay wax baris iyo maxay tahay iyo tacliin iyo macallinimo. Gumta Umar Joog Horyal TV Berbera.